Assalaamu calaykum. Adduunkan aanu ku noolnahay waxaa ka jira loolan aad u xooggan. Qof jilicsanna loolankaasi kuma guulaysan karo. Sidaas darteed, haddii aad rabtid inaad guulaysatid oo ka mid noqotid dadka ugu awoodda badan oo loolankaasi ka dhaxeeya kuwooda ugu saamaynta badan, waxaad u baahan tahay inaad baratid xeerarka awoodda. Haddaba, waxaan kuu soo koobayaa buug lagu magacaabo 48 xeer ee awoodda. Haddaba muuqaalkan ayaan kugu faahfaahin doonaa xeerka koowaad. Cidlaha la wadaagin qorshahaaga oo mar waliba iska dhig qof aan la ogaan karin waxa uu damacsan yahay iyo qorshihiisa midna aan la filan karin. Keliya u oggolow inay natiijadaadu ay hadasho. Xeerka labaad. U dhaqan mararka qaar oo u ciyaar kaalinta doqonnimada ilaa aad ka gaaraysid hadafkaaga. Keliya u muuji kuwa kula tartamayo inaad ka doqonsan tahay oo aanan waxba garanayn. Si hoosana u dadaal, hana arkaan natiijadaada oo keliya iyagoo aanan filayn. Wayna kala saamayn badan yihiin qof natiijadiisa la filayo iyo qof aan natiijadiisa la filayn. Xeerka saddexaad. Ka fiirso intaadan hadlin ka hor, waayo taasi faahfaahin uma baahna. Waxaa jirta orax dhehayso hadal aad ku hadashay waxaa laga yaabaa inaad ka shalaysid, laakiin aamusidaad aamustay weligaa kama shalayaysid. Xeerka afaraad. Ilaali sumcadaada. Sumcaddu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee noloshaada. Haddii aad lumisid sumcadaada, arki maysid cid ku qadarisa. Sida inaad ku hadashid erayo aan loo baahnayn iyo ficilo xunxun. Haddii aad rabtid inaad awood ku yeelatid bulshada dhexdeeda, waa inaad kor u qaadaa sumcadaada. Xeerka shanaad. Ku guulayso ficiladaada ee ha ku guulaysan hadalladaada. Dad waxaa jira ku sheekeeya waxyaabaha iyaga ay damacsan yihiin inay sameeyaan, oo waxaaba laga yaabaa inaysan samaynin xataa. Iyo waxaa jira dad aanan la ogayn waxyaabaha ay damacsan yihiin iyo qorshahooga. Keliya waxaa laga warheli inuu mashruucooda guulaystay. Xeerka lixaad. Noqo qof lagu tiirsan yahay ee ha noqon qof ku tiirsana ah. Marba haddii aad doonaysid inaad awood ku yeelatid bulshada dhexdeeda, noqo qof ay ku tiirsan yihiin. Si aad xeerkaasi u gaartidna, waxaad u baahan tahay inaad noqotid aqoonyahan. Xeerka toddobaad. Weligaa ha degdegin. Dadka degdega waxay u badan yihiin inay ku dhacaan dabinka dadka la tartamayo. Buugani waxa uu leeyahay wax waliba waxay u baahan yihiin waqti in la siiyo. Sidaas darteed, sii waqti oo degdega jooji, mar walibana noqo qof miisaamaysan. Xeerka siddeedaad. Weligaa ha noqon qof dhinac raaca. Mararka qaar, marka aad bulshada dhexdeeda ama saaxiibadaada aad ku dhex jirtid, waxaa dhici kara inuu isqabqabsi yimaado ama ka dhex dhaco. Marka ha noqon oo ha ku degdegin inaad dhinac raacdo. Xeerka sagaalaad. Cidna ha siin kalsooni xad-dhaaf ah. Waxaa dhici karta inuu kaaga soo horjeesto meelaadan filayn, ama cadowgaaga aad loolanka idinka dhexeeya inuu kuu adeegsado. Muuqaalkeenina maanta halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Waadba ku mahadsan tahay daawashadaada. Hana ka ilaawin inaad fikirkaaga ka dhiibatid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.